بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشذا صوماليات دمان وسلام إياه رجو دمر ويلو قبر سلام تا إسلام كان يدكو السلام بعد السلام وأنا بتقاب الحمد لله وأنا قوا محمود حاج سليمان حرسي كما قاعد أبوان ورابه شوقة مقالة هرقيسة تاريخ دعاي تحي لحية طبعا بشي صدحات 2026 xalaytana ay ahayd siday u eg tahay ee ay u ekayd habeenkii laylatul qadriga 27kii ramadaan. ilaahay hayna waafajiyo intii xalay ducaysayba ducadooda Allah aqbalo iyo inta dib u ducayn doontaba iyo intii ka hor ducaysayba dhammaanteen inta cadaabta laga xoreeyo Allah weynaha inagu daro. inta markaan dhaafo halkan waxaan jeclahay inaan sheeko ku duubo hees aan taariikhdeeda idinka sheekayn doono iyo cidda leh iyo siday ku timi. waa hees farshaxana oo qurux badan oo madhimata ah oo qof kastoo aan u sheegaa uu iga codsado inaan duubo. dabeedna waxaan raadsaday fasaxiina waan u soo helay. sheekadan dhexgelaya taariikhda sheekada tan ay soo gashay waxa weeyaan 1982. heesta cidda leh ee iska lihi ilaahay janno farduusa ha geeyo nin aad iyo aad iigu qaali ahaa oo abtigay ruma aanu aqaanay oo saaxiibkay ruma ahaa oo la odhan jiray Xuseen Dhuux Weyd ayaa iska lahaa heestan iyo xigmadda halkan ka soo socota insha Allahu tacaala. waxaan jeclahay heesta iyo inaan kala sooco iyo taariikhdeeda ama sheekadeeda. waan sheekadeeda idin soo hormariyo kadibna heestii aan tiriyo sida idinku qurux badnaanaysa sidaas. ninkaasi wuxuu ahaa nin abtigay oo waxay saadana buu ahaa janno farduusa la geeyo wuu dhintay. markii layga codsaday inaan duubana waxaan raadiyey reerkiisii iyo awlaadiisii oo fara badan maasha Allah tabaarakallah. intuu awowga u yahay iyo intuu aabbaha u yahayba ay aad iyo aad u fara badan yihiin. ninkii ugu weynaa reerka oo la yiraahdo Cabdi Reer Magaal Cabdi Xuseen Dhuux Weyd oo aanu saaxiib lillaahi isagana nahay nin aad iigu qaali isna ah ayaan ugu dambeyntii arrintaa uga soo amar qaatay inaan duubo waana lay fasaxay. taariikhda sheekadani soo gashay waxa weeyaan 1982. goobtu waxay ahayd balliga la yiraahdo Jiir oo markaa magaalo yar degtay oo camiran oo naq laga joogo oo beel culus taalo. ayaan sidii ari ka soo iibso ari ahmina ka soo iibso. dabeedna waxaan ugu tagay Xuseen Dhuux oo magaalada agteeda degan. Xuseen Dhuux wuxuu ahaa nin aad u qaali ah, nin wuxuu ahaa abwaana, wuxuu ahaa nin aad u xishood badan, wuxuu ahaa nin aad u xaraga badan, wuxuu ahaa nin social ah oo farxaan ah oo aad u farxaan ah. cid walba la daa ayuu ahaa. dabeedna gurigiisa oo magaalada in yar u jira ayaa waxa agala geelayaga oo aad ugu dhow. geelayagana waxa haya walaalka Cali Saleemaan Xirsi. dabeedna halkaasaanu fiidka intaanu geela caanihiisa sugayno ayaanu halkaa ku caweynaa oo shaaha iyo bariiska iyo ay noogu karisaa
xaajiyadiisii way nooshahay ilaahay ha barakeeye xaadsan sheekh doon dabadna halkaasaan ku caweynaa lacagtii xuseen dhuux baan u dhiibay waan ku yidhi ii iibi ariga adigu iibi adaa iga weyn oo iga waaya aragsan oo iga farsamo yaqaansane dabeedna galab walba inta uu iibiyo gurigiisaan kusoo caraabinaa halkaas ayuu iiga sheekaynayaa markaa heestaasi iyo siday ku timi wuxuu yidhi sarara weyne ayaa beri maqaaxi ku haystay dabeedna reer miyigu waa taqaanaayo way amaah badan yihiin dabeedna lacagtii shaaha ayay iga wada amaahdeen dabeedna maalintii dambe ayaan waxaan gaadhay heer aan xaabadii iyo caddayskii waxaan ku iibsado aan waayo sokorta iyo shaaha madow waxaaban ka qaadan jiray dukaan halkan oo iska kii amaahin jiray labadaasaan kari waay dabeedna maalintii dambe waxaan eegay ragga maqaaxida fadhiya lacagta iga maqan oo dhan waxaan ku leeyahay ragga halkan fadhiya raggii ka xishooday oo nin waliba waa ku jiraayo inaan idhaahdo war lacagtana siiya waan ka xishooday dabeedna si farsamaysan ayaan u toosiyey hees baan bilaabay heestii markiiba waa lala kala yaacay nin waliba wuxuu is yidhi wallaahi bilaahi waa tanoo waxaa un dhiman dee inuu yidhaahdo war kalarkaydu ku wada dhigo heestii waa la qaaday meel walbo bari iyo bogox baa lala kala aaday beled iyo baadiyo waa lala kala qabtay raggii lacagta lagu lahaana lacagtii wuu iska doonay nin waliba amaah iyo maxaanku idhahdaa wuxuu raadsaday iyo wuxuu haabo karo iyo wuxuu helaba wuu soo ururiyey lacagtii way iska soo xarootay way iska soo daba dhacday heestii waxaa loo geeyey nin aanu isu heesno oo aanan iscafiina jaaniska isla eeganno oo la yidhaahdo caydiid dhalahool oo ree agar oo ree aadan hagara oo boqonka meherad ku haysta boqonka iyo sarar weyne 20 kilomitir bay isu jiraan boqonku wuxuu ku yaalaa sarar weyne iyo buuhoodle kala barhkooda ninkii yaqaan baa yaqaan dabeedna wuxuu yidhi ninkii baa loo geeyo la yidhi warkuma ku war ninkii xuseen dhuux waxaa keliya u dhiman inuu sodogyadii shaararka kala baxo oo yidhaahdo dhiga lacagta heestaana wuu tiriyey dabeedna wuxuu yidhi wuu soo xidhay meheradiisii wuu soo xidhay 20 kilomitir wuu soo lugayey wadankana baabuurtu kumay badnayn oo bishii baa laga yaabaa ila beri dhaweydba saasay ahayde in baabuur la arko guuxaya dabeedna 20 kilomitir bullug ugu soo jeedi wuxuu yidhi halkaa markii uu ka soo baxay baan gartay waxa uu la socdo iyo waxa uu sido iyo waxoo dhan iyo caddaadeen dabeetana shaahu sumuligu ahaa buu yidhi intuu laamigi waddada isagoo soo socda intuu sumuligii soo bixiyey yuu yidhi xuseenow intuu iskay dul taagay hoo lacagtanoo iga iibi shaah markaasaan idhi fadhiiso waaye waraxoo fadhiisan maayo lacagta iga hooyo iga iibi shaah dabeetana subxaanaka yaa cadiim waxaan isku qaaday buu yidhi xaggaa iyo lacagtiina waxaan xusuustay inay gebigeedii soo xarooteen waxba iga maqnayn dabeedna xaggaa iyo waxaan isku qaaday buu yidhi baylisadii iyo killigii iyo xaaladdu noocan imanka shaaha loo kariya may ahaan jirin waxay ahaan jirtay killi area iyo bayliso weyn ayaa baylisadana lagu baylin jiray biyaha xilliga erigaana waa lagu bigayn jiray sonkortii iyo shaahii lagu sii shubay ayaa biyihii oo bayla lagu shubi jiray miiskana waxaa saarnaan jiray 2 weeloo midna sokori ku jirto oo malqacad yaroo afgaaban oo afga muuran lahoo ay tumaalaheenu tumaan ay ku jirto malqacad iyo caddays kalena halkan ay isku jiraan dabeedna malqacadda tan afka gaaban leh 3 jeer baa dhalam sonkorta lagu ridaa maxaan ku idhaha bakeeriga tan kalena malqacadan kalena qalam dabeedna dalab bay lahayd maxaan ku idhaahdaa dadka lagu ogeysiinayo in meesha shaah ka bisil yahay bakeeriga iyo malqacadan afka gaaban baa laysku garaaci jiray dhalalalam markaasa shaaha lagu shubi jiray markaasa gow gam jam lagu garaaci jiray afka muuran bay leedahay oo si ay u burburiso sokorta iyo u qasto farsamo noocaas bay ahayd wuxuu yidhi halkanaan waxaa intaan isku mashquuliyey ayaan meeshaa galay buuri dabeedna
sidii buu ii canaananayaa buu yidhi caydido way dul taagan yahay dadkiina intii sheekadiiba joojiyeen yay labada iyadan xaaladda ka dhex taagan daawanayaan una dhegaysanayaan halkaasaa markaa sheekadii ka bilaabmaysa heesta hore ayaan bilaabayaa ee ninka kan igu soo dirtay ee kasoo kicisay fadhiga lacagtiina lagu keenay heesta hore waxaan idhi muslim yow islaameed muunida aroortii ee ragna maalka foofsado ragna meherad raadsadabaan malkadaa fadhiistaa kun nin baa isoo maro oo mid waliba macnoo baxay oo muunad gaara leeyahay mid wuxuu yidhaahdaa soolanaha soo miir marxab baan idhaahdaa mid kale wuxuu yidhaahdaa qorantaa meesha ii saar aniga killigaba ha iigu karinne daasad qoran la yidhaahdo oo si gaara loo sameeyo qorantaa meesha ii saar marxab baan idhaahdaa mid kale wuxuu yidhaahdaa milli oo macaanee oo saddexda meesiba u badiyo meel ayaanu ka xumaan marxab baan idhaahdaa mid kale wuxuu yidhaahdaa warin yaroo minansakaabaa maalkayga igu sii koob gaaban ii dhiib marxab baan idhahaa goortay maqsuudaanay shaahaygii miirtaan baan mulkigii u doontaa mid wuxuu yidhaahdaa wallaahi maafish baan hadeer ahayoo jeebku wayga maran yahay markaasaan maleegtaa mid kale wuxuu yidhaahdaa maahir caanaheedii iyo harag baa meesha ii yaal markaasaan maleegtaa mid kale wuxuu yidhaahdaa adeer maal baaba ii xidhan oo sayladu ku maqan yahay markaasaan maleegtaa mid kale wuxuu yidhaahdaa mid kale wuu imaagaayo muran buu ka keenaayo maba qaba yidhaahdaa warnaga tagmaada shaaba nagu leh maanaga waxba cabnay markaasaan maleegtaa ee muslim yow islaameed magligaa dhabarka ii sudan iyo mindidaa inaan la soo baxo oo mashaqiyo xumaan dhigo iyo mulkigaa inaan iskaga hadho bal miduuna soo dhaha waa taa marka lays eegay ee la aamusay ee la yidhi war waxaan dee dhiman inuu yidhaahdo adig iyo adigaan idinku leeyahay siiya lacagta hebel iyo hebel baan ku leeyahay warkaana dhiga oo kalarka inagu dhigo dabeedna waa taa lacagtii lasoo xareeyey waana heestaa dee uu ninka kani kusoo duulaan tegay ee uu kolley wuxu soo samaystay ilaa wixii waan ka daldalooliye dabeetana heestii dambe markaa sidii dadkii ay noo daawanayeene noola yaabanayeene noo eegayeen oo aan ogaaday lacagtiina de inay ii dhan tahay baan ka dhex toos aan idhi qodheexeeda ka daldalooli haddaba waxa uu sito dabeedna waxaan idhi hadalkii doraa tegey ee toonkiiyo suuqa lala xulay toobad baan ka joogaa tolkii nimaanu saaburinoo hadba toori ula baxay oo isku taagay waa belo tacabkiina ma xasilo beryey kala tasawdaayoo tuura iska aadaayoo toddobaad maqnaataa ka dambay timaadaa oy tanna hoo yidhaahdaanoo maqalkaa tabaysaa isku tigirgaroobaayo tangiyow tidhaahdaa buu yidhi siduu u lahaaba sidaa ahayd ilaah kuu naxariiso tangiyow tidhaahdaa meeshii qosol baa lagu dhiftayoo sacabkaa la bilaabayoo ninkii xataa qosolkiibuu ka qayb galay ninkii la odhan jiray caydiid dhalahoolo sumuligiisi yaraa intuu jaabka iska gashaday oo fadhiistay buu yidhi waayahay iga iibi ogaah inaan wixiisii daldalooliyey oo ka banjariyey oo aan waxba u noolayn dabeete ilawaanigan anigu isu xaabiye dabeedna sheekada horta halkaasay inoogu dhammaatay labadaa heesood ee quruxda badan oo labaduba mid waliba nooca ay tahay ay u qurux badan tahay ayay sheekadu ahayd maalin walbana way taagan tahay oo raggiina sidii buu shaahi u amaahdaa oo maqaaxyo uga amaahdaa ninkii maqaaxida haysta ee xishoonayeyna sidii buu u dhiban yahay intaa waxaan kaga faa'iidaysanayaa halka aan ku dhaafo sheekadaas way dhammaatay waxaan kaga faa'iidaysanayaa dadkii aynu ahayn
ummadu waxay ahayd xishood iyo dhaqan leh dhaqankii iyo xishoodkii iyo ixtiraamkii iyo xididnimadii iyo xigaalnimadii iyo muslimnimadii iyo derisnimadii iyo wax alla wixii inay kharibmeen oo xagga kale isugu daaban yihiin markhaati baynu isaga wadanahay ummadii waxaa active ah labay u qaybsantayoo in balaayo ka shaqaynaysa oo guuldarro ka shaqaynaysa oo cadaab ka shaqaynaysa oo colaad ka shaqaynaysa oo ciil iyo cadho ka shaqaynaysa iyo in sidaa u daawanaysa oo waxa kana la yaaban afkiina qirim laga siiyey oo aad moodo in afka laga dawaariyey oo la yidhi ha hadlina oo maxaan ku idhaahdaa macno alle macno ay u jeedaan aan la garanayn labadaasay u qaybsameen waxaana active ah intii balaayada ka shaqaynaysay intii kale qabar baa ku habsaday way aamusan tahay kuwaasay daawanayaan waxa ay samaynayaan baa laga sheekaynayaa waxa kuwa habaarka qaba samaynayaan ayuunbaa laga sheekaynayaa ummadii noocay ahayd waynu garanaynaa reer kasta oo Soomaaliyeed laba reer oo kasta oo Soomaaliyeed oo derisihina guuldarrada halkaa aan ka sheekaynaya taala ayaa laba reer oo kasta oo derisa dhex taal Soomaaliyeed dabeecad kuma kala duwana waayo aragnimo ma kala leh akhlaaq ma kala leh waa isku geed bay wada daaqday waxaan ku ururinayaa war inta ilaahay garanaysa ee aakhiro garanaysa ee ummadani waxa ay ahayd garanaysaa iyaga inta kale ka badan oo uma dhow oo ka badane intaynu fadhiga ka kacno dadka kan ilaahay intuu meel yar oo bugcada ku wada uumay maalintii la uumay halkii lagu wada uumay ayay ilaa iyo qiyaamaha wada oolaanayaan maqashooda isku jiraysa ilaa qiyaamaha ariga isku jira geela isku jira dadka isku jira magaalada isku jirta wax u kala soocan haba yaraatay ma jiraan daqiiqadna ma kala libdhayaan dad noocaasi ha coloobeen oo col ha ahaadeen oo wax bini aadan isu noqdo oo aanay isu ahayn aanay jirin wax la qaadan kara ma wax la qaadan karo la daawan kara ma aynu iscanaanano oo caqliga saliimka ah ha shaqeeyo oo aynu fadhiga ka kacno oo halaynagu laayee aynu nabadda ka shaqeyno oo ummadda raadino maslaxadeedii iyo wixii ay ahayd inaynu dib u samayno yaa in dib loo amaamudo sibaa waaye la ahaaye aan bal isku dayno inaynu sidii ummadi ahaan jirtay ay ummadani ahaan jirtay inaynu kala ayaansano oo la raadino oo aad iyo aad baan idin salaamaya wabilaahi tawfiiq ilaahay dambigeena ha dhaafo